guddiga aan ka mid ahay ifsan saddexdii sano la soo dhaafay waxyaabo badan ayaan qabanay waxa lagu xasuusanayaa ta ugu weyn waxa waaye guddigan markii ugu horeysay wuxuu ku shiri jiray hal magaalo guddiyadii naga horeeyay iyadoo ma xumeyn laakiin markaan fiirinay inay dalladda inay matalayso ururo ka mid ah oo aad iyo aad u badan inay u tahay dalladoodii iyagana ku mudoobeen iyagaa marka ah dadka maaragtay maamulo ama maamulkooda soo dooro kara marka waxaan isla garanay guddigeena inaan soo bandhigay fikrad ah haddii ay tahay dallad inay hal magaalo kaliya lagu shiro waxa ka wanaagsan magaalo kasta oo ururada ka tirsan ifsan uu degan yahay in la ageeyo marka maamulkii ayaan waxaan u soo dhaweynay ururadii ayagana awalba lahaa marka ururada shirarkii ugu dambeeyay ee aan qabano waxa lagu qabanayay markastaba deegaanka ay ifsan ururadeeda ka mid ah ay leeyihiin guddiga aan hadda ka tirsanahay waxaan sameynay istiraatiijiyad ah walaalahayn guddiyadii naga horeeyay annagoo aanan si qaldan arrintooda aanan u dhahayn wanaag badan bay soo qabteen wax badan bay soo saareen gaarsiiyeen intaan annaga ka qabanay marka aan ka sii hormarin waxaan sameynay marka istiraatiijiyada ururada ka tirsan ifsan iyo ifsan guddigeeda ama ha noqoto hadday noqonayso warbixino ah in la siiyo ah ama in la siiyo maalgelin ay wax ku sameyn karaan in markaas la diyaariyo barnaamijkaas dood dheer kadib guddigu wuxuu isku aragti ka noqday arrinta ah in ururada lidka ka ah inay ayaga qabtaan shaqadii inay ayaga shaqadii qabtaan macnaheedu waxay fududeynaysaa ifsa magaalo kasta markaas inay joogto oo ay markaas magaceedii iyo shaqadii loo igmaday oo ahayd inay ummadda wax u qabato inay meesha ka muuqato arrintaa waa ku guulaysanay saddexdii sano ugu dambeysay ururadii ka tirsanaa ayaan liiskoodii soo saarnay 10 urur ama 15 urur ayaa markasta sanad kasta mashruucyadii la siiyay ifsan u qabanaya ururadaas ayaa qabanaya ayagaa dadkoodii u yeeraya ayagaa wacyigelin sameynaya ayagaa markaa baahida ama mashruucyada markaa diyaarka ah ee loogu talagalay inaan fulinayo waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah ifsan ma dabooli kartaa baahida mujtamaca ku nool dalka Holland su'aashaas waa maya ifsan waxaa la aasaasay waqti ay u baahnayd Soomaalida waqtigaasna aad iyo aad u koobnayd baahidna way jirtay oo ah war sidee u midownaa ifsan marka waxay ku guulaysatay dadkii markaa jiray waqtigoodii inay midayso urur ku soo midoobaan ururka ifsan waana lagu guulaystay aad iyo aad u fiicneed laakiin ifsan lama dhaqaaqin isbedelka ku dhacay bulshada Soomaalida cadadkeeda sagaashameeyadii la aasaasay wixii ka dambeeyay 98 ilaa 2000 iyo xogaagii dadka Soomaali aan tiro lahayn oo tiradooda aad u badan tahay waddanka soo galay ifsan marka waxay ku ekaatay meeshii lagu aasaasay xarunteedii oo Randstadka ama Amsterdam marka baahidii jirtay ee loo aasaasay in ummadda Soomaaliyeed ay ka turjunto sida dawladda arrintaa waa ku guulaysatay waana lagu ixtiraamay Soomaalidiina markaas way sii badatay laakiin istaatuudkeedii laguma darin wax ka baxsan inta ay qabanayso ilaan haddii bulshadii ay noqotay tuulooyinkii degmooyinkii iyo gobolladii fogfogaa la keenay inay u tagto awoodeedii marka ma baahsana waxay ku ekaatay marka dhowr mashruuc oo si fiican loo fuliyay oo loo baahnaa laakiin bulshada waxay u baahan tahay ma u baahan tahay bulshada in labada mashruuc lagu ekaado iyo ma u baahan tahay su'aasha waxa timid in qofkii dhibaato ku dhacday in loo tagi karo ifsa taasi xaqiiqda guddiga aan ka tirsanahay iyo kuwii ugu horeeyayba arrintaas wax maaragtay isbedel oo laga sameeyo jiro ifsa marka haddii la noqoto in dadka Soomaalida ay midaysay oo xagga dawladda inay u noqoto aan spreekbent meesha kaliya ee laga xiriiri karay arrinta aad iyo aad ugu guulaysatay way qabatay hawshaas laakiin dadkii bulshadii Soomaaliyeed ma degan hal magaalo nasiib wanaag marka urur ayada ka tirsan oo markaas yaraa waqtiga hore laakiin waqtiyadii dambe ee ay batay ayaa magaalo kasta jooga ururadaas ayaa dadkooda u adeega arrintaas marka baahida xaggaas laga dabool sanadkii hadda la soo dhaafay waxaa dhacday dad badan oo Soomaaliyeed oo Ilaahay amarkiistoodii u timid in guryaha iyaga meeda laga helay dadka Soomaalida sida la socotaan waxay isku dhiibaan siyaabo kala duwan arrintaas hadda ma wada gali karno maadaama idaacad tahay dawladdu way nala soo xiriiraysaa ama qabiiltiga way soo wacaya shakhsi ahaan ama ururka aan aniga magaalada aan deganahay markuu soo wacana wuxuu leeyahay qof Soomaaliyeed oo meeyda ayaa laga helay ama 6 bari ama 4 bari
gurigaas oo meyd ku ah qofkaasna waxaa noo rajistaraysan inuusan ama xaas lahayn ama caruur lahayn ama ehel dhow lahayn dadkan cadaanka ehel wuxuu yaqaanaan walaalka walaasha si toos ama adeerka ama abtiga ama cidda markaas adigu ku qoran adigu markaas aad family tihiin marka waxay noqonaysaa marka inaan dadkii dhahno maya annaga dadkan wakiilka ah ilan qameytigu sida wadanka yaala qofku waa inuu sharci ahaan iska qoraa qabuuraha kuwa ama kuwa maaragtay aaska qaabilsan hadduu qof ka qornayn ama siyaabo kale ama ceer qaadana ama uu jiran yahay qameytiga markaa ka mas'uula inuu qarashka markaa bixiyo laakiin waa in loo weydiiyaa marka markii aniga la soo waco ama biliiska soo wacan ama qameytiga soo wacan waxaan isku dayaa marka magac ahaan Soomaaliyeed ama ururka aan matalo ama aan maaragtay inaan ku difaaco oo aan qofka qof muslim ah lama gubi karo ilaan dadkan hadduu caymisku ku jirin waxa sharti ah in dhulkii ama lagu aasila lacag laga bixiyo si ay lacagtaas qarashkooda u yareeyaan iyagoo xumaan kale ka wadan ayay markaa waxay go'aan gaarayaan in faawad kharaf wax la yiraahdo ama si fudud in qofkii loo gubo si markaas maaragtay uu sadhowl iyo qarash badan u qaadan ilaan dhulka hadaa qaadanaysid waa inaad ama 20 sano kiraysataa ama 10 sano ama abadiyan kuwa muslimiinta ayaa aad u isticmaala abadiyan laakiin kuwa markii ay qarash ka bixinayaan waxay ku soo koobaan maadaama qarashka laga bixinayo qarash ah bulshada ay wada leedahay sida ugu fudud in loo aaso marka qofka muslimka waxaan ku sameeynaa ama Soomaaliga ah inaan dhahno may waxaan sameeynaa anaga mataqaana qabuuraha islaamka keenina wixii qarash ku soo baxnana ama qayb adinka bixiya ama wada bixiya ama bulshada Soomaaliyeed ayaan u weydiinaa ama ururada aan ka mas'uulkanahay ayaa qarashka bixiya sanadada ugu dambeysay aad iyo aad arinta u badan tahay iyo ama mataqaana nagu soo laalaabatay laakiin alxamdulillah ku guuleysay sida aad waa sax sida aad ogtahay ama aan ku dhawaaqnay guddigu wuxuu ku dhawaaqay in doorasho la qabanayo maadaama waqtigiina la doortay uu ku egyahay 3 sano ah ayaa guddiga laga rabaa inay soo diyaariyaan inay shiraan ka bacdina soo diyaariyaan sida doorashada loo qaban doono marka waqtigeeni markaan gaarnay ayaan shirnay shirkaasna waxa ka soo baxay 2 arrimood in guddiga uu qabaqaabiyo doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo guddiga statute-ka ayaa markasta xukuma in xaqun u siinaya in guddigii uu markaa intuu shiro isla markaana uradii uu soo bandhigo inuu ku darsado waqti cayiman waqtigaas gudahoodna lagu qabto marka hadda waxaan qabaqaabinay in doorashada dhici doonto sida waqti dhow oo sanadkana haddii wax iska bedelaan oo abaabulkeedii iyo waqtigeedii ay ku dhici weysana waxaa loo soo bandhigayaa ururada codsi ah in sharcigii uu waafaqsan yahay ah in maaragtay lagu daro waqtigaasna lagu diyaar garoobo laguna qabto doorashada taasna abaabulkeeda wadnaa iyo hadda diyaar garoobooda marka sida ugu dhaqsaha badan ayay banaanka u imaan doontaa sida laga yeeli doono waqti kasta dhalinyarada waa loo baahan yahay hadday noqoto howlwadanadooda ama hadday noqoto guddiga laakiin mar kasta waxaan bandhignaa ama soo bandhignaa dhalinyarada inay ka qayb qaataan annaga laftigeena waxaan ku soo galnay waa yani codsigaas naloo soo jeedi dhalinyaro kasta ee marka diyaar ah waa inuu marka waadax tahay ee la ogaada ifsan waxaa ka mid noqon kara ama soo sharaxi kara guddigeeda ururada ka tirsan ee lidka ka ah qof ka tirsan dhalinyarada marka waxaa laga rabaa inay ayaga halkaas iska abaabulaan soona diyaariyaan waxay rabaan dadka hadda ku jirana waxa weeye inta badan waa dad cusub hadda guddigan hadda aan ku jiro hal shakhsi maani inta kale waa dad markii ugu horeysay maamulka ifsan soo qabta haddaad rabto inaad doorasho ka qayb qaadatid waa in aad ururada ka tirsan ifsan isla markaana bixiya contributionka sanadlaha ah ururkaas ku jira ayaa dhalinyaradiisa ama qofka raba inuu guddi iska soo sharaxi kara sidaa daraaddeed waa arrin ay ku taala dastuuri ah yaa ka mid noqon kara guddiga ifsan qofku waa inuu ka tirsan yahay urur ka tirsan ifsan isla markaana ururkaas uu lacagta bixiyo sanadlaha ah isla markaana uu yahay guddi ama urur active ah saa daraaddeed hadduu dhalinyaro yahay hadduu shakhsi kale yahayba ayaa iska sharxi kara arrinta ku saabsan sida dad badan la socdaan Netherlands dawladeeda way dhacday bisha Oktoobarna waxaa la qabanqaabinayaa doorasho cusub oo la isugu imaanayo arrintaas ifsan guddigeeda way ka wada hadleen sidii looga qayb qaadan lahaa maxaa yeelay waddan haddaad degan tahay isla markaana xuquuqdii dastuurka oo ku siinay inaad cod bixin tahay ama is sharxi kartid
arintaas gabaabulkeedii ayaan wadnaa magaalo kasto ama ururada ka tirsan ifsa ka tirsan ama kuwa ka tirsan in arintaas u soo istaagaan walaalayaal meeshan anagu uga faa'iideysanayo warbaahintan waxaan dadka Soomaalida u sheegaya meel kasta ee degan in ay ka qayb qaataan doorashada macnaheedu waxa weeye in u fiiriyaan yaa raba ilaa anagu waxaan ka soo jeednaa dad ajaanib asalkeeni anagu Nederland yaa raba dadka ajaanibta ah yaa raba dadka muslimiinta ah inay wadankan sidii xorriyadoodii umada kale waysato ugu noolaa karo guddiga ifsan arintaas wuu ka wada munaaqashooday waxaana lagu tashtay ama la rajaynayaa in magaalo kasta dadka ururada lidka ka ifsan ama kuwan ka haynba in lagu baraarujiyo loo qabto wacdigelin ah sidee aan wadankan xisbiyada kala duwan ayaa ka dhisan qaar maaragtay dadkeena ka soo horjeeda cunsuri ama xaq jir ah qaar diimo kala wata qaar liberal ama socialist ah qaar muslimiinta xisbi waxa jira muslim ah sidee marka danta noogu jirta maxay tahay inagoo ah Soomaali ah ama ajaaniba oo diinteena muslimka rabna inaan kula noolaano cid dhibaataynaysa inaan cod siino ama cod ka qaadato waa inaan arintaas ka taxadarnaa marka dadka Soomaalida dhamaantood waxa ku wacdigelinayna inaan ka soo qayb galaan bandhigyada ama maaragtay wacdigelinta ama looga hadlay dooda maaragtay doorashooyinka si ay u ogaadaan yaa ku haboon inaan cod siino yaana la shaqeynay marar badan baan sameynay dadka xisbiyada aan u codeynay uga faa'iideysanay inay danaha bulshada Soomaalida ama bulshada muslimiinta ay uga faa'iideystaan marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ka soo qayb gala magaalo kasta waxaan isku dayaynaa inaan wacdi aan u dirno ururada jooga inay ka qayb qaataan inay arintaasi dhiirigelinteeda isla markaana dadka hooyooyinka Soomaalida aabayooyinka iyo walaaladeen dhammaan active-ka ah inay arintaas u istaagaan ayna waajib tahay inaan ka qayb qaadano maxaa yeelay dhibaato badan ayaa ka imaan karta haddii ay xisbi aan adigu ku rabin ama xisbiyada hadda wada ogtihiin xerooyinka la xiro dadka muslimiinta la masaafiriyo ceerta la yareeyo caafimaadka sida la yeelo waxdano dadku ugu jirta male adoo codkaagii haysta oo ku difaaca kara diintaada iyo sharaftaada inaad codkaagii dhigato aadan ka qayb qaadan arintaa loo istaagan leenahay waan isku imaan doonaa arintaas magaalo kastana insha Allah waa ka hirgelinayna in maaragtay wacdigelintaas laga bilaabo